wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyada Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan waaxda dhulka groupka heeganka ilaalinta dhulka danta guud saaka waxay burburin ku sameeyeen dhul dan guud ah oo sifo sharci darro ah loo dhisanayay dhulkaas oo ku yaala degmada Ibrahim Koodbuur gaar ahaan saldhigga aadan shina ka xiga dhinaca galbeed halkan waxaan rabnaa ka wasaarad ahaan inaan laba fadhimood ka gudbino mid bulshada ku socota mid ku socota dadka caadaystay inay dhulka danta guud boobaan isla markaana ay diiraan dhisaan ama wax rabaan ka qabsadaan dhammaan cid kasta oo caadaysatay in dhulka danta guud boobto dhulka dhaxeeya ummadda ay san u eenaysay doona ugu tagrifalaan isla markaana ka hirgashan dhismayaal u gaara waxaanu leenahay waxa la idinka qaban talaabo sharciga waafaqsan cid kasta oo isku dayda in dhismo dhul dan guud dhisato waxa loo baabiin doona sida kuwan maanta dhabarka iga xiga loo baabiin doono cid wax loo celinayaana ma jirto waxaana laga qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan waxaana la tiigsan doonaa dhammaan maxkamadaha iyo shuruucda ka jira maanta dawladda hoose iyo wasaaradda hawlaha waxay ku midaysan yihiin baabiinta la baabiinayo dhulka danta guud ee galaashada dambeeya muwaadin dhulkan danta guud cidda iska leeyahay waa adiga waa dhulkii lagaaga dhisi lahaa iskuul waa dhulkii lagaaga dhisi lahaa MCH waa dhulkii masaajid lagaaga dhisi lahaa waa dhulkii garoonka bad ciyaarad carruurta nagu ciyaarta lagaaga dhisi lahaa fadlan muwaadin la ilaali dhulka danta guud soo sheeg meel kasta oo laga dhisay dhulka guud isla markaana ay boobayaan dadka caadaystay in dhulka danta guud boobaan qayb nagala noqo badbaadi dhulka danta guud oo wasaaradda hawlaha guud iyo hay'adaha kala dawladda u xil saaran ku soo wargeli shaqadana waa shaqo ay ka wada socdaan wasaaradda hawlaha guud iyo dawladda hoose ee Hargeysa groupka heeganka ee ilaalinta dhulka danta guud oo groups ku jira ciidan iyo kormeerayaal dhammaan wuxuu ka howlgalaa gobolada Soomaaliland wuxuuna la shaqeeyaa dhammaan dawladaha hoose ee dalka gobolada dalkana sidoo kale looga fuliyo oo loo burburiyo dhulka danta guud ay la boobayo aad u mahadsantihiin